Dad badan waxay fiiriyaan waxa ay maanta yihiin, laakiin ma fiiriyaan qofka ay isu beddelayaan maalin kasta. Su'aashu ma aha yaa tahay maanta, su'aashu waa yaad noqonaysaa hal sano kadib. Haddii aad maalin kasta waqtiga lumiso, mobilka in badan la noolaato, wax cusubna aadan baran, si tartiib ayaad u burburaysaa. Laakiin haddii aad 30 daqiiqo wax barato, jirkaaga dhisto, quraan akhrido, xirfad baratid, discipline samaysatid, maalin kasta waad koraysaa oo hore ayaad u soconaysaa. Dadka guuleysta hal maalin kuma guuleysan, waxay ku guuleysteen caadooyin yaryar, joogteyn iyo inay naftooda maalin kasta horumariyaan. Maskaxdaadu waxay noqotaa waxaad maalin kasta ku celceliso. Haddii aad ku celceliso caajis, waad caajisaysaa. Haddii aad ku celceliso dadaal, waxaad noqonaysaa qof adag. Qofka aad noqon doonto berito waxaa dhisaya waxa aad maanta samayso. Hal sano kadib waxaad noqon kartaa qof xooggan, qof lacag sameeya, qof kalsooni leh, qof Allah subhanahu wa ta'ala u dhow. Ama waxaad noqonaysaa qof weli meeshiisa taagan oo excuse me ku jira. Doorashadaas maanta ayay ka bilaabanaysaa. Muuqaalka like saar.